atooshow haddaan ku warama roobabka ayaa aad iyo aad uga da'aya gobolka waqooyi bari dalka Kenya taasoo sababtay inuu ay go'aan wadooyinkii loo mari lahaa xerooyinkaasi wadooyinkana ayaa jarmay dadka ayaa raashin la'aan ahay hay'adaha samafalka qaasatan UNHCR ayaa raashin cid meel ay u maris la'aaday qaxootiga shidaalka oo qaali ah dadka qaar xamaalatadana ay halkan u soo lugeynayaan kadibna halka ay ka shaqaysanayaan dadkaas waa dad xamaalata ah waxay soo qaadayaan qaadka ama waxyaalaha yar kadibna dhinaca kale ay keenayaan atooshow marba marka kale roobka ayaa aad iyo aad u sii da'aya dadkana waxay halkan ku noqdeen go'doon run ahaantii xerooyinka dhadhaab ayaa ah muddo qarni kadib inaysaan u go'doomaan haddaba dadka ayaa wax isweydiinayaan sidee ay uga heli doonaan maciishada ama ay ugu noolaan lahaayeen meel aan raashin aan lahayn qudaartii go'day shidaalkiina go'ay haddaba halayar shidaal ayaa qaxootiga yaalo waana dadku waxay isweydiinayaan qiimaha ayaa gooy kara liitarkii oo lagu qiyaasay 320 haddaba shanlihii meequu noqonayaa